السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتين صدرنتين وحيدين وجينا إن تعرفنا ضبطان الناس إذا كلا سوري مدة كلام قنن يعني وحياة جوا أو جد أما أرين جرت أو جد يعني هم قناة حدنا الحمد لله وحي ويسفر ماذن ما كيقال علينا غدا ما أنت عشر كأنه وحكو سبسين هاي simple present yes and no question. For example last time وحكو سو هذا لنا ما أنت sim yes and no question last time عن هذا اللي negative. So today we are going to talk about the simple present yes and no question. So simple present anagu adeegsanayna yes iyo maya ha iyo maya ayaan rabnaa inaan su-aasha uga jawaabno oo simple presentiga ah. So let's see. Does he exercise? Does he exercise? Does. So simple presentiga marka hadda yes in no question aan isticmaalaya mostly waxaan isticmaalaya waxa la yidhaha auxiliaries ama do does. Okay, do they, does he, does she, does it, like that. Does he exercise? Asaga miyuu sameeyaa exercise ama jimicsiga ma sameeyaa. So waxaan adeegsanaynaa do and does anagoo ku dareen subject iyo main verb. Okay, for example, do I like salad? Do I like salad? So in the simple form waxaan leeyahay in the simple form waxaan leeyahay simple question form or simple present tense. waxaan leeyahay do I iyo main verb oo simple form ka ah waa salad. I mean like, sorry, main verb waa like. So do adeegsada do you like salad adiga aan kugu soo jeediyo ama qofka kale gacanta labaad. Do you ma jeceshahay saladka? Salad waa la yaqaanaa waa saladka ama salad si loo yaqaan. I don't know salad aniga af Soomaali kuma garanaa waa salad. So question form ka hadayna do you plus main verb. Then do we like salad? Do we like salad? Do we like salad? Do we anaga ma jecelnahay saladka? Do they like salad? Do they like salad? Ayaga ma jecel yihiin saladka? Does she like salad? Ayada ma jeceshahay saladka? Does he like salad? Asaga ma jecel yahay saladka? Does it look good? Muu u muuqataa wax quruxsan? Does it look good? Wax wanaagsan muu u muuqataa? Okay, intaas waxaan hordhaca. Are you a student? Are you a student? Waa simple present. Su-aashan meesha la saaray calaamad su-aalka waxaan ugu jawaabi doonaa either ha ama maya, yes or no. Are you? So su-aasha markaan samaynayno waxaan soo hormarinay verbka are you a student? So lama dhihi karo do you be a student. So markaad rabto inaad tiraha verbka aad soo qaad are you a student adigu arday ma tahay verbka I mean do it does ama main verb ama auxiliary ama helping verb ma isticmaalaysid. waxaad leedahay are you waa verbka caadiga aad isticmaalaysaa oo verb to be is are am. haddii lacala aan rabo asaga arday ma inaan waxaan dhahayaa is he a student? Is she a student? Are they students? Like that. So main verb ka wuu ka xarimaya dhankaas. So not do you be a student. So main verb a form of be, a form of be. So main verb ka qaab be aan ha u qaadanayna ama verb be. Okay. Do you like ice cream? Do you like ice cream? Ma jeceshahay ice cream-ka ama jalaatada? So maxaan dhihi karnaa adiga ma jeceshahay jalaatada? Yes I do or no I don't. So jawaabtu maxay noqotay do you. So, okay, do waan soo qaatay. So do you like ice cream? So maxaan leeyahay yes ha I do because adiga lagu wareystay. So jawaabta adigaas leedahay. adiga you waan ku dhahayaa laakiin adiga maxaa leedahay adigaas ka jawaabayso. So maxaan ku daray do. Yes I do laakiin no aan dhahay. So no markaan dhaha I don't because waa negative. I don't like ice cream. Does Max like ice cream? What does he? Max ka waxaan ku bedeli karnaa he hadduu nin yahay. Yes he does or no he does not or no he doesn't. Does he? Yes he does or no he does not or no he doesn't. Okay, let's now see a little bit of practice if we have understood. inaan fahanay in kale marka practice-kaan sameyno. inta waxaa lagu sii long answer, short answer ka maqan iyo questionkii. waxaa lagu yidhi
I like to ride horses maxay noqonaysaa already meesha marka I like to ride horses hadday noqoto meesha already yes ay noqonaysaa jawaabtan inta maxay noqonaysaa do you like to ride horses do you like to ride horses maxaad filinaysaa meeshaan markay do tahay adiga lagu weydi do you lagu dhahay yes I do isn't it yes I do I like to ride horses okay they have a baby they have a baby waxay leeyihiin canug ama waxay sitaan canug so do they have a baby yes they do yes they do they have a baby waa la yaqaana ninkan cashir horaan kusoo qaadan waa macallin mathematics ama xisaabaadka so waxaan dhahnay Gerardo teaches maths so does he or does Gerardo teach math does Gerardo teach math yes he does yes he does because does maxaa u dhahnay waxaan soo qaadanay he does he teaches math so he Gerardo ga lagala jeedaa okay he does teach math or he teaches math cows don't bark cows don't bark so bark is a new word ama waxaa la jira vocabulary bark waxaa la yidhahaa eyga siduu u ciyo okay siduu eyga u ciyo ayaa waxaa la yidhahaa barking dogs bark cows more marka waxaan soo qaadan doonaa channelkeena kale ee Learn English with Xareedda waxaan kusoo qaadan doonaa waxyaabaha xayawaanaadka ay ku dhawaaqaan eyga siduu shanqartiisa xayawaanaadka nooc walba lo'da ariga digaagada kulli waa soo qaadan doonaa hadduu alidmo waa soo wada cashrada ayada so cows don't bark lo'da ma qaylo sida eygu ma qayliso so they don't bark lions waxaan dhihi karnaa they roar so waxaan dhahaynaa do cows bark do cows bark no they don't so do they don't because they maxaa loo dhahay cows waxay tahay plural they don't laakiin haddii does cow bark hal hadduu ahaan lahaa does aan dhihi lahaa laakiin markay badan yihiin do waay okay simple present asking information questions with where so simple present aan gelaynaa anagoo rabna inaan macluumaad weydino you ask a question with where anagoo adeegsanayna where waxaan adeegsanaa markaan adeegsanayna place okay where do they live xaggay ku nool yihiin where do they live they live in Baltimore where you do are so meesha so you are asking information question do you where adeegsanayna so jawaabta waxay noqotay do they live in Baltimore waa su'aal kale okay let's see do they live in Baltimore short answer waxay noqon doontaa yes they do or no they don't okay where do they live xaggay ku nool yihiin so jawaabta la bixinaya marka waxay tahay you are asking information kan do they live in Baltimore macnaheedu waxa waaye xogtan waxaad ka og tahay dadkan inay ku nool yihiin option haystaa laba magaalo aad ku tuhmaysaa laakiin mid kamid aad ka dhawaajinaysa waxaad leedahay do they live in Baltimore so waxaan dhahayaa ha they do way ku nool yihiin or maya kumay noolo laakiin where do they live qofkan wax xog ma haysto xaggay ku nool yihiin where do they live xaggay ku nool yihiin in Baltimore okay you see marka su'aasha laba nooc waaye mid do it does marka lagu dhaho waxaad adeegsan kartaa ama aad sugaysaa ha iyo mayaad filanaysaa yani optional jiro meesha wax optional jiro laakiin where hadday imaado automatically jawaabtaas su'aasheeda ha iyo maya maahane waa jawaab direct dhiibaysa waxaan ku yiri adiga masuuqa bakaarada u socotaan ku yiri ama xad kuna do they live in Baltimore do they live in Banadir may ku nool yihiin ha way ku nool yihiin ama maya kuma nool bay noqonaysaa bisa laakiin daa'ira xagay ku nool yihiin ha ma dhihi kartid laakiin waxaad leedahay waxay ku nool yihiin Banadir okay ama degmada hodan wax dhihi kartid does Alexi live in Moscow Alexi ninka la yiraahdo Moscow may ku nool yahay macnaha meeshan qisha jiro qofkan waxbuu ka ogyahay meesha Alexi uu ku nool yahay so maxaa la hayaa yes he does ama no he doesn't macnaha already ninka meel uu sheegtay laba meel uu ku tuumay meel kamid uu sheegay ama ha la kara ama maya la kara laakiin hadii la ka war where does Alexi live where does he live xaguu ku nool yahay waxaad sugaysaa in Cape Town so su'aasha maxay ahayd no he doesn't jawaabta I mean no ma ahan kuma noolo wuxuu ku nool yahay Cape Town Moscow kuma noolo wuxuu ku nool yahay Cape Town ariga iyo koonfur Afrika okay
so where aan qaadana marka aan buuxina meelaha soo socda so waxaan ku daraynaa do it does plus main verb so do dash in Baltimore subject do they dash in Baltimore then main verb okay adoo saas ugu jeediban u noqonaya marka waxaan haysanaa where waxaan ku daraynaa do it does okay maxaan dhahaynaa do in Baltimore where does where so do it does iyo where adeegsanaynaa then here we have a subject subjectiga maxaan samaynaynaa waxaan dhahaynaa yani meeshii ay qofkaan ku tuhmayso waa they is the subject okay do they live the main verb okay back marka so where plus do and does plus subject plus main verb do they live in Baltimore where do they live does Alex live in Moscow where does he live okay question aan jawaabta lagu siinayaa aan aragna marka questionka yes he does the child has a toothbrush anugu wuxuu haystaa toothbrush ama brushka ilkaha so maxaan dhahaynaa does the child have a toothbrush anugu toothbrush buu haystaa yes he does in the bathroom he brushes his teeth in the bathroom wuxuu ku cadaysanaya ilkihiisa bathroomka waa meesha oo musqusha ama qubeyska where does he brush his teeth where does he brush his teeth xaguu buu ku cadaynaya ilkihiisa brush ereyga brush waa cadaytaan brushing yes she does Lucy likes to read in the library so maxaan dhahayaa does Lucy like to read at the library yes she does Lucy likes to read at the library so ereyga atna adeegsanaynaa waa preposition of place okay next time hadduu ilaa yaraa waxaan gelaynaa the simple present asking information with when and what time hadda wuxuu ahaa asking information anagoo macluumaad ku weydiinayno where laakiin waxaan ku weydiin doonaa next time when and what time goorme ama xilligee asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu